bismillaahi raxmaani raxiim waxaana wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta naafiisho waa 6da bisha 8 2026 maalinimo khamiisa qodobada qaybtan aan idin haynana waxa ugu waaweyn xuutiyiinta Yemen ayaa maanta waxaa la soo weeraray inay ku qaadeen weerar xoogan dhinaca dawladda Yemen dhinaca kale kooxaha daroogada ka ganacsada ee ku sugan dalka Colombia ayaa waxa leeyahay waxa ay khibrad u doonteen dhinaca iyo Ukraine si ay u adeegsadaan diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano droneska dhinaca kale doorashada Mareykankana waxa leeyahay xiisad aad iyo aad u xoogan ayaa ka soo bixaysa dad ay Yuhuudda dabada ka riixaysi ayaa si weyn ugu dhacay ayaa leeyahay doorashada ka socota dalka Mareykanka qodobo kale ayaa raaci doona hadii aan waqti u helno aynu ku horeynaa Abdul Al-Sayid oo ah dhakhtar 41 sano jir oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Masar isla markaana marar badan si cad u sheegay inay Israa'iil xasuuq ka wado marinka Gaza ayaa maanta la xaqiijiyay inuu ku guuleystay in uu noqdo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee kursiga senatarka ee Mareykanka ee gobolka Michigan isagoo oo doorashadan dhacday November kursigan kula tartamayay musharaxa ka socda xisbiga jamhuuriga ee Mike lagu magacaabo Abdul Al-Sayid hadii uu ku guuleysto ayaa leeyahay doorashada guud ee bisha November waxa uu noqon doonaa qofkii ugu horeeyay ee muslim ah ee taariikhda Mareykanka ka mid noqda golaha sanad xuutiyiinta Yemen ayaa maanta qaaday weerar ballaaran oo ay u adeegsadeen gantaalo balastiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyaga oo beegsaday saldhigyo ciidan oo ay leeyihiin ciidanka dawladda Yemen ee u taageera Sacuudi Carabiya weeraradan ayaa ka dhacay gobolada Al-Ma'rib iyo Xabdiramoud ee Yemen ayaa sababay ayaa leeyahay dhimasho ka badan 30 askari iyo saraakiil kale weerarkan ayaa noqonaya mid ka mid ah weeraradii ugu waaweynaa ee xuutiyiinta Yemen ay muddooyinkii dambe ku qaadaan ciidanka dawladda Yemen waxa uuna dib u soo nooleynayaa xiisadii iyo iska horreemaadii u dhaxeeyay xuutiyiinta Yemen iyo ciidanka Yemen ee ay taageeraan dalalka isbahaysiga Carabta ee uu hogaamiyay Sacuudi Carabiya kooxaha ka ganacsada daroogada ee ku sugan dalka Colombia ayaa bilaabay kumanaan dagaalame inay u diraan dalka Ukraine si ay ugu barbar dagaalamaan ciidanka Ukraine iyadoo ujeedadooda ay kala yihiin lagu sheegay inay doonayaan dagaalamayaal khibrad u leh dagaalka casriga ee nidaamyada elektarooniga ay ku jiraan adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida uu maanta wariyay wargeyska Financial Times warbixinta waxaa lagu sheegay in mar horeba dib ay ugu laabteen gudaha Colombia boqolaal dagaalame oo khibrad ka soo heray dalka Ukraine taas oo bedelaysa awoodda kooxdan daroogada ka ganacsata ee Colombia oo haysata dhaqaale iyo khibrad hadda ay ka soo hereen dalka Ukraine oo ay ku soo saari karaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo hub kale taas oo wax ka bedeli karta xasiloonida Latin America iyo dhinaca kale khatarna ay ka wajihi karto ama uu ka wajihi karo Mareykanka ma cadda sidoo kale in ay jiraan kooxo kale oo khibrad ka doonaya Ukraine si ay iyagana u adeegsadaan khibradda dagaalka halkaas ka socda si ay ugu barbar dagaalamaan ciidanka Ukraine